xagga qasa aynu eegno dagaalku wuxuu dhaafay 270 maal raali ahada waa 670 maalmood 2 sano ayuu ku dhow yahay Netanyahu wuxuu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay inuu soo furto maxaabiista marayka qasa lagaga haysto waxa kale oo isku dayay inuu burburiyo awoodda ururka Hamas marayka qasa inuu qabsado laakiin waxaasi oo dhan waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay imika mar kale ayuu istijaabinaya waxa la xaqiijiyay inuu fashilmay hawlgalkii military ee la magac baxay gaadiidka Guardian kaas oo la sheegay inuu bilowday bishii May ee aynu ka soo gudubnay haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan golaha wasiirada Israa'iil oo xalay ilaa iyo saakay shirka u fadhiyeen oo socday 10 saacadood ugu dambeyntii lagu go'aamiyay in la bilaabo hawlgal military oo lagu qabsanayo marayka Gaza waa hindisaha Netanyahu oo wato laakiin kulankaasi dood adag ayaa ka dhacday indhaha ayaa faraha la iska geliyay haddaba sidee wax u dhaceen aynu eegno wararkaasi warbaahinta Israa'iil waxa ay ka qortay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa gordhaweeto waxay shaaca ka qaadeen in golaha wasiiradu ay ansixiyeen soo jeedin lagu doonayo in lagu qabsado magaalada Gaza taas oo qayb ka ah qorshe ballaaran oo lagu doonayo in guud ahaan jidda Gaza oo dhan gacanta lagu dhigo xafiiska Netanyahu ayaa intaasi ku daray bayaanka ka soo baxay in ciidamadu isu diyaarinayaan inay gacanta ku dhigaan magaalada Gaza iyadoo markaasna la sheegay in la bixinayo wax loogu yaray gargaar bini'aadantinimo oo la siinayo shacabka ka baxsan goobaha dagaalka wargeyska iyo dacwada xaranood ee ka soo baxay Israa'iil ayaa waxa uu ka soo xigtay Netanyahu oo sheegaya in hawlgallada hadda socda ee Gaza ay fashilmeen isla markaasna aysan keenayn soo celinta dadka la afduubtay isagoo adkeeyay in Israa'iil ay rabto inay guul ka gaarto Hamas laakiin wargeysku wuxuu leeyahay taasi horay uma dhicin geesta kale wargeyska Israa'iil Hayom ayaa sheegay in golaha wasiiradu ay 10 saacadood oo wada hadal ah kadib ansixiyeen soo jeedinta Netanyahu ee ah qabsashada marayka Gaza halka hay'adda warbaahinta Israa'iil ay xaqiijisay in ogolaanshaha qabsashada Gaza uu si aad uga digay taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir wargeyska The Jerusalem Post ee ka soo baxay Israa'iil ayaa isna ka soo xigtay sarkaal Israa'iiliya oo sheegaya in ciidamadu ay beegsan doonaan saldhigyada xoogagga iska caabinta ee marayka Gaza gaar ahaan bartamaha magaalada iyadoo hawlgal kale la sheegay in lagu bilaabi doono xeryaha qaxootiga ee bartamaha jidda Gaza sidoo kale shabakada Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxay soo xigatay sarkaal Israa'iiliya oo sheegaya in ciidamadu ay goodomin doonaan dagaalyahanada Hamas ee ku haray magaalada Gaza sida hadalka loo dhigay isla markaasna ay furin doonaan hawlgal dhanka dhulka ah oo ku koobnaan doona magaalada oo kaliya wajiga koowaad sarkaalkan ayaa ku andacooday in ujeedada hawlgalku ay tahay in dhammaan shacabka laga daadgureeyo magaalada Gaza oo loo raro xeryaha bartamaha iyo deegaanada kumeel gaarka ah ee aagaasi ku yaal wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa isna wuxuu ka soo xigtay sarkaal Israa'iiliya oo sheegaya in go'aanka golaha kooban ee wasiirada uu ka dhigan yahay in hadda aysan jirin niyad lagu qabsado xeryaha bartamaha halka xildhibaan Amit Halefi oo ka tirsan xisbiga Likud ee uu hogaamiyo Netanyahu uu sheegay isagoo la hadlayay raadiyaha Israa'iil in qorshaha ay ansixiyeen xukuumaddu ay tahay in lagu xakameeyo marayka Gaza oo idil warbixin kale oo uu qoray wargeyska iyo dacwada xaranood ee ka soo baxa Israa'iil waxa uu sheegay in taliyaha guud Eyal Zamir uu ahaa qofkii ugu adkaa ee ka soo horjeestay qorshaha qabsashada Gaza isla markaasna waxa la sheegayaa inay dhaceen doodo kulul iyo muran dhex maray taliyaha iyo wasiirada intii lagu jiray kulanka golaha siyaasadda iyo amniga Zamir ayaa kulanka ka sheegay inaysan jirin xal bini'aadantinimo oo lagu barakicin karo 1 milyan oo qof isla markaasna wax walba ay noqon doonaan hawl adag wargeyska Israa'iil Hayom warbixin kale oo qoray waxa uu ku sheegay in Eyal Zamir uu aaminsan yahay inay adkaan doonto in ciidamada Israa'iil muddo dheer sii haystaan Gaza isagoo tilmaamay in cutubyada kaydka ah ay la daala dhacayaan daal xoogan taas oo saameyn ku yeelan karta dagaalka sida muuqata wargeyska iyo dacwada xaranood mar kale waxa uu sheegayaa in Zamir uu diiday qorshaha la sheegayo in dagaalku uu yahay mid fudud wuxuu yiri wuxuu qaadan karaa ilaa 2 sano waxaana qatar gali kara nolosha maxaabiista iyo tan askarta war kale ayaa waxa uu sheegayaa in wasiirka maaliyadda ee mayalka adag Bezalel Smotrich uu diiday
qorshaha maadaama uusan ku jirin qodob ka hortegaya joojinta dagaalka xitaa haddii la gaaro heshiis isweydaarsi maxaabiista ah. telefishinka Kanaal 12 ee Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa in wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga qaranka Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir ay ka soo horjeesteen xitaa in loo ogolaado Mareykanka Gaza gargaar inuu u gudbo. mas'uuliyiin Mareykan ah ayaa waxaa soo xigtay telefishinka NBC ee Mareykanka laga leeyahay wuxuu sheegay in sawirro laga qaaday dhanka dayax gacmeedka ay muujinayaan Israa'iil in ciidamo fara badan ay soo dhoobayso aagga Gaza suurtagal ay tahay duulaanka in la bilaabo si degdeg ah. shabakadu waxay sheegtay in sawirradu ay muujinayaan dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul ciidan oo la tilmaamay howlgal weyn oo soo fool leh. bishii May ee sanadkan ciidanka Israa'iil waxay bilaabeen howlgal cusub oo ay ugu magac dareen gaadiidka Gideon, laakiin wargeyska iyo dhaco taxriinood waxa uu sheegayaa in xitaa golihii wasiirada kulankoodii saacadihi la soo dhaafay inay aaminsanaayeen in howlgalkaasi uusan gaarin yoolkiisii. intii lagu jiray howlgalkaasi ciidamada Israa'iil waxaa laga dilay in ka badan 40 askari iyadoo tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen bilihii Juun iyo Juulaay iska horimaadyada ka socda Mareykanka Gaza. dhinaca kale kooxaha iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa waxay wacad ku mareen in Israa'iil qiimo culus ay ugu kicin doonto haddii ay isku daydo in ay si buuxda u qabsato Mareykanka Gaza. ciidanka Israa'iil imika waxay gacanta ku hayaan magaalada Rafah ee koonfurta Mareykanka Gaza qaybo ka mid ah iyo dhanka waqooyiga iyadoo la sheegayo in dagaalkuna uu yahay mid si kasta u sii adkaanaya. waxagaag inta aan idin soo gudbin wadamada reer galbeedka in badan oo ka mid ah oo arrintan ka hadlay aynu eegno gudaha Israa'iil sida mucaaradku ay uga hadleen go'aankan ka soo baxay golaha wasiirada ee Israa'iil. waxaa la sheegayaa in falcelin ay ka imaanayso hogaamiyaasha mucaaradka. Yair Lapid oo hogaamiya ururada mucaaradka mid ka mid ah ayaa waxa uu sheegay in go'aanka golaha wasiirada uu yahay masiibo isla markaasna uu yahay mid markaasi Xamaas waxa ay doonayso ka turjumaya. dhinaca kale Israa'iil Baytano ninka hogaamiyaha Victor Lieberman ayaa isna waxa uu sheegayaa in go'aanka goluhu uusan caddayn u yahay weeye go'aanada nolosha iyo dhimashada ee la qaadanayo iyadoo aan la tixgelin buu yiri amniga iyo yoolalka dagaalka. telefishinka Kanaal 12 ee Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa in banaanbaxyo ay ka socdaan xilligan kadinka hore ee safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Tel Aviv iyagoo dalbanaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu joojiyo dagaalka isla markaasna uu soo celiyo maxaabiista. war kale oo arrimahan la xiriira hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay soo xigatay aabaha mid ka mid ah maxaabiista Israa'iil ee gacanta ugu jira Xamaas waxaana uu sheegay in go'aanka lagu qabsanayo Gaza uu ka dhigan yahay in dadka la afduubtay la baabi'iyo oo aan la helin noloshooda isla markaasna xukuumadda Israa'iil ay quusatay. sahan uu sameeyay wargeyska Maarif ee ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu muujinayaa 57% Israa'iiliyiintu inay aaminsan yihiin heshiis lagu soo celinayo maxaabiista in la gaaro bedelkeedina la soo afjaro dagaalka. sidoo kale 30% Israa'iiliyiintu waxay taageerayaan in la qabsado Gaza xitaa haddii qatar ay ku tahay dadka la afduubtay. waxa intaas dheer 30% ayaa waxay taageerayaan qorshaha taliyaha guud ee lagu go'doominayo qaybo ka mid ah Mareykanka Gaza. laakiin waxaan ku raac